بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال يمروين أنا أقول سيدو كلوان السلامي أدي أنا ugu mahadsantihiin soo dhaweynta aad soo dhaweyseen caawa halkan waxaan uga soo qayb galnay sida la sheegayba daahfurka ururkan hor socod macnaha hor socod waa urur ku soo biiro ururada waa loo baahan yahay urur shaqeeya wax badan qabta waxaa jirta in aanu ka tirsannahay dalad la yiraahdo Payden daladaasi hor socod qayb bay ka tahay haddii waqtigu uu musaabaxayo macnaha wax yar baan ka sheegi lahaa markaasi Payden macnaha oo ku aadan xafladan la qabto kala caawa tusaale ahaan maxay nagu soo ziyaadin karaan hor socod haddii ay qayb ka yihiin Payden hor socod maxay ka faa'iidi kartaa Payden oo dadku dhaqana maxay kaga faa'iidi karaan dalada Payden la yiraahdo maadaama ay hor socod xubin ka tahay marka ma garanayo waqtiga intuu leeyahay haddii mawadi kale waa tahay waxa laga dhawaajiyay aan korta ku cudur daaranaya daladan ururka la yiraahdo hor socod hadda aanu hawshiisa halkan u fadhino in uu siyaasad iyo goboleysi iyo wax kale ba bari ka yahay waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay markii Payden la yiraahdana de waxa ku astaysan Puntland marka meesha iska qabanaysan idin sheegtana wax yari kaadiya marka Payden marka la soo gaabiyo magacaasi Payden waxa la soo gaabiyay Puntland European Diaspora Association Network oo macnaheedu tahay markaan soo gaabino shutaga ururada Yurub ku dhaqan ama ka dhisan ee markaas ka soo jeeda Puntland iyo sida ay markaas hadaf gaar ah isu dhaafsan lahaayeen ama hadaf u wadaagi lahaayeen qorshaha nagu jira wuxuu yahay in Soomaalida inteeda kalena ay gaarto macnaha waxa weeyaan hal oran jiray oo sida u kala sareysa loo kala qaada dadka markaas odafada wadaaga ama jeeska markaas isku dhagan isku dhow inay iyagu markaas wax wadaagaan oo wax qaybsadaan kadibna ay u gudbaan meesha ka weyn hadafka loo aasasay muxuu yahay Payden marka dhowr qodob oo tiro badan waxyaalaha nagu dhaliyay waxay tahay kow in la helo wada shaqeyn sidii dadka iyo dalka wax loogu qaban lahaa macnaha waxa la yiraahdaa fari kaligeed fool ma dhaqdo in la helo dad markaas shaqeynaya waxa aad been loo shaqeeyay runtii marka waxaan rajeynayaa in hor socod markaas oo qaybtii aan ka doonaynay ay ka qaadato magaalo walba oo Yurub kamid ah macnaha ururka ku dhaqan ee markaas doonaya inuu wax qabto in afkaartooda la iswaadsado oo markaas la meel mariyo in ururada ku bixiyay dalada ay fikir wanaagsan ee wadankii wax u tari kara la qabto ama la isdhaafsado in la abuuro mashaariic wadankii wax u taraya in la baraarujiyo qurbo joogta ku dhaqan Yurub oo markaas halkan ka soo jeeda reer Puntland weeyaan laakiin waxa loo gudbi doonaa Soomaaliya oo idil in la helo abuurid xiriir joogta oo ka dhaxeeya ururadaasi wadanka ka dhisan waliba gaar ahaan kuwa markaas xubinta ka ah in la tayeeyo mashaariicda ay fulinayaan ururadaasi mar dhow baan idin sheegi doonaa waxyaalaha kamid ah oo mashaariicda la fuliyay in la wadaago aqoonta ay leeyihiin urur walba oo ku dhaqan wadanku degan yahay ama magaalada degan yahay waxa laga yaabaa Norway oo kale in dhowr urur ay ka tirsan yihiin dhowrkaas urur khasab maaha inay meel wada degan yihiin oo waxay deganaan karaan magaaladan Oslo waxay degan karaan Stavanger waxay degan karaan Trondheim malirada meel kala duwan macnaha in laga helo urur kala duwan marka waxa laga yaabaa haday 30 qof si fiican u wada shaqeysan magaalo kala degan 5 qof oo kamid ah inay aqoon leeyihiin kartideeda leeyihiin hal abuur leeyihiin marka dadkaasi waxa looga baahan yahay magaalooyin kale oo Yurub ka tirsan marka in la wadaago aqoontaasi iyo khibradaha kala duwan la wadaago waa muhiim in la helo isbarasho is-ogolaansho wad garan kartaan maanta wadanka gudihiisana dadka isma ogola dibadina la isku ma ogola
colaad baas baa jirta haddii la yiraahdo maanta دربيدان بان وضع عدينا أقل كان بان وضع عدينا وحلقة بقف إنه يرضى عدان كان مو نكسر عدان كانوا كدوم بشرة إن هذه مركز طبعا نذكر عدي والله بيدي ده وحلقة الله بدي إنه قصته مركز إن بيدن وحن كيف إذن وكم إذا إن ضدكوا أي سؤالادان إن هشيس هدف بحق لجود شيء إن تاسو ينوسس يدي وحكم إذا كبسوا قد بين لبرارجيو أورو بأخرين كدلدا إن وحي مشاريع ونكسن أو رضا كالفلوني يعني إن قيب كنقدان أما هذيك اللي يودن كذا كأبوران رضا مركب كوبه هو بيدن محي كوضع شقين كران هذا نقول له المستقبل كي هذا نقول له هذا وحيال بدنا أي كوضع شقين كران إن محمد ركسي أمر tusaale ahaan urur kale oo aniga gaar ahaan aan uga tirsanahay oo mashaariic wada in mashruuca markaasi wanaagsan ee ay kuwaas wadaan in ay hirgeliyaan oo ay meel fiican mariyaan hadafka laga leeyahayna laga gaaro hadda waxaa jirta marnuu baan idin gudaha gali doonaa hadhooti oo soo noqon doonaa qayb kale waxaa jirta haddaan idin soo gaabiyaba tusaale ahaan urur waxaa jira la yiraahdo puwe ama ururka waxbarashada iyo caafimaadka oo ka dhisan magaalada Stockholm anigu khasnaji baan ka ahay aniga nin la yiraahdo Dr. Khaliif Bile ururkeena markii aan dhisnay hadaf baa laga lahaa hadafkaasi wuxuu ahaa in Soomaaliya waxaa jira goolal ama hadaf adduunka dhan la hiigsanayo oo ah in gabar walba oo umuleysa ama foolanaysa inay hesho daryeel caafimaad ee wanaagsan Soomaaliya mar hore ugu dambeysay saaxada caalamka inkastoo hadda dib u soo noqotay waa wax lagu farxo Ilaahay baan ka rajaynaynaa inay si hagaagto taas ayaa keentay in anagu aan isnadana bal meeshii dawladda Soomaaliyeed ama dawlad goboleedyada ay gaari waayeen bal inaan gaarsiino ninka fikirkaasi aan la qaadanay doctorka waxa weeyaan muddo 40 sano wuxuu ka shaqeynayay wadamadan Asia sida Pakistan iyo Afghanistan iyo marka Pakistan buu muddo aad iyo aad uga shaqeynayay ilaa 8 waa dad nin ku bartay 8 halkan Sweden wax ku bartay dhakhtar Soomaaliya ka shaqeyn jiray dhakhtarnimo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hormuud ka ahaan jiray khayr Allah siiyo ninkaas fikirka uu dhaliyay runtii dad wuxuu helay howlwadeena wanaagsan ah oo markaas anigu aan kamid ahay meel alla meeshu noo jihiyaan aadini macnaha go'aanku noo sheego wuxuu ahaa in uu doonayo dhulkii Soomaaliyeed meel walba oo ay gabar ay haysan meel wanaagsan inay ku dhashay in la helo marka fikir baa jira la yiraahdo marwada caafimaadka magacaanaga oo bixinay in laga helo Southwest Baydhaba in laga helo Jubaland in laga helo Puntland in laga helo Somaliland in laga helo meel walba Hirshabeelle sidaas oo kale marka in la baahiyo marka qof walba meel ama ururba meel buu markaas wax ka qaban karaa intii wadooyinka iyo meel walba ay aad u furmayso wadanka marka anagu waxaanu jihadu saarnay Soomaaliya Puntland waxaan waliba si jihada si saarnay meelaha loo yaqaan gaariwaaga oo dadku ay markaas gaari karin inantu inta ay la soo wado qofka dumarka ay markaasi isku dhimanayso ama umul raaca wax la yiraahdo kalmadu umul raaca waan raadinay afafka kale aan ku raadinay runtii waan ka weynay waxa keenana wax kale ma aha dibka ku qabta ama waxa ku soo food saara magac baad u bixisaa taas baa keenta Soomaalida inay kalmada umul raaca la soo abuuraan kalmadu waxa jirta hadda la yiraahdo burcad badeed weligeen weynu naqinay Soomaaliya markaan joognay pirates laakiin intii dawladii hore jiray qofna ma oran burcad badeed kalmadaas afkiis kama saarin laakiin wacyiga jira markaas ayaana baray marka tiyo kale weeyaan marwa caafimaad marka waxaan ku talagalnaa qorshaha ah inaanu suulino ma suulin karno laakiin gool baad ka dhiganaysaa wadadaas raac ilaa aad ka guul gaartid dawladda Swedish-ka aan soo bandhignay afka Ingiriisiga aan ku qornay waxaan ugu qoran waxa kamid ah hadii ka soo qaadba hadda hor socdo kale ay doonayso inay ka fuliso wadanka meel kamid ah projectiga qoran oo diyaarsan oo Sweden markaas ay ogolaatay mashruuci in halkan lagu dabaqo laga bedelo kaliya ururka magaciisa anaga waxa la yiraahdaa ay sheegeen ururka waxbarashada iyo caafimaadka Stockholm ka dhisan in magaca kaliya laga bedelo
in dadka contactiga ama markaas xiriirka la sameeyo laga bedelo emailada laga bedelo laga bedelo waxyaalaha kale oo markaas khaaska ah ururkaasi taa waxay keenaysaa in si sahal ah dadka halkan joogay iyagoo dhib badan u gelin iyagoo fikir abuur sameyn iyagoo qoraal badan sameyn inay warqadihii magacooda intay ku qoran wax bas ku qoran ay la tagi karaan meel markaasna loo ogolaan doono sababtoo waxa weeyaan wixii Stockholm laga ogolaaday Oslo laga ogolaanaya ana dadkan aan la noolnahay Yurubta waxa weeyaan isku si bay u fikiraan isku si bayna wax u qiimeeyaan marka shahaadada inta laga qiimeeyo Stockholm iyo Ingiriiskana laga qiimeeyaa shahaadada Soomaaliya laga qiimeeyo wax laga qiimeeyaa inta laga qiimeeyo marka sidoo kale baynu ku talagalnay marka alxamdulillah barnaamijkaasi waa hirgalay lacag waxana la siiyay adigu 500,000 Swedish crown baan la siiyay hadda soo socota hadii aan bixi doono anaga 3 qof waxaan aadaynaa Soomaaliya Puntland halkaas waxaan ugu diyaarsan labada gole tusaale ahaan halkan waxa weeyaan hadii shilin lagu dhiibo waxa laga rabaa ay sheegeen wixii aad ku qabatay isagoo diyaarsan xisaab celin rasmi ah marka taas waa mid qodob kale naga doonayo waxay tahay in dadka bi'ada meesha ku dhaqan ay intuhun gelin sababta waxa weeyaan qof baa imaanaya halkan ka tagaya waxa leeyahay mashruuc buusita isaga jeebkiisa ku maamulanaya in anagu dan lagu gaariya qaar ba kula dagaalamaya xataa qaar ba ciideynaya marka hadda hadii aan leedmo 3 Maarso waxaan u balansan labada gole golaha fulinta iyo golaha baarlamaanka waliba waxaan ku nari inta qaabilsan deegaanka waxbarashada iyo caafimaadka oo golaha baarlamaanka ka socda iyo waliba kuwa fulinta ama dawladda liirada ka socda inaan ku kulan garowe uqaashina u yeerno habla baa la soo xulay gobolka kala duwan baynu dooranay meelo aan markaas caafimaadka gaareen salahan haday noqotay bariga fog haday tahay midugta ku dhagan ilaa Ethiopia haday tahay Sool iyo Sanaagiyo marka hablihii baan loo soo arooriyay 30 hablood inaan ku bilowno hadda ballanqaad baan loo sameeyay waxa la yiri December soo socota hadii aad hawshan si wanaagsan u soo sameeysan waxa la ogolaanaya ay sheegay lacag 2 milyan marka ku xigtana 4 milyan marka macnaha waxay u arkeen inuu yahay wax gool laga gaari karo misnacad kulanka hadda soo socda marka workshop weeyaan dadku waxa loo sharxayaa shilin walba inta la soo siiyana loo ogolaaday ilaa ay maalinta la dhameeyay meesha ku baxayso local NGO wax la yiraahdo oo meesha degan baa monitoring ka qaabilsan inuu soo eego wax inay hawsha socdaan inuu reportiga soo bixiyo marka iyagu intay qaadanayaan ku qorantay percentage ahaan cadaankana Swedishkana saas ku ogolaadeen marka hadafka marka payden laga leeyahay waxa weeyaan arintaas oo kale hadii ururkaasi uu fuliyo inuu ku dabaqo wadamada kale ay jira oo Yurub ka tirsan waa isfaan Soomaa marka macnaha waxa weeyaan hadii wixii wanaagsan in dadka kale la siiyo la yiraahdo arintaas qabta marka intaasan ku hakanaya hadii ay jirto wax su'aalaha waad weydiin kartaan marka waxaan rajeynayaa horsocod iyo ururada kale oo ku dhaqan magaalada Stockholm ee magaalada Oslo raali ahada in iyaguna ay qayb ka noqdaan marwa caafimaad waxa weeyaan magaalo walba looga baahan yahay tuulo walba dadka waliba magaalooyin ku dhow waxay jaanis u helayaan in haweeneydu markay xanuunsato in si sahal loo geeyo meel waxa jirta tusaalahaan meelaha qaar kood hadii ay xanuun qabto inay qaadanayso hal maalin waxa ka sii daran in wadadu ay ahayn mid haloosi ah oo wanaagsan halosina marka waa muhiim in hawlahan oo kale gacan laga geysto marka aad baan maasantihiin waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo in jaaliyada qayb kamid ah la kulmo halkan marka ubaxna waxaan leenahay oo ku maasantahay cazmaadi iyo aad noo soo isku insha Allah marka payden qayb bay ka tahay hadii urur uu sare u kacayo in la garab qabto la garab istaago marka hor socod waanu garab taaganahay wixii expertise iyo u baahan tahay gacan baan siinaa hadii Allah waa maasantiin assalamu alaykum warahmatullahi